بسم الله الرحمن الرحيم warka oo fidsan wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safaaradda dalka Taiwan ayaa kala saacday heshiis ku saabsan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee bulshada kaasi oo si rasmi ah u bilaaban doona sanadka 2024 ee lagu soo foolkaray xafladda oo loo qabtay mashruucan lagu kala saxanaya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka safaaradda dalka Taiwan isduwaha caafimaadka gobolka Maroodijeec agaasimaha isbitaalka guud saraakiil ka socotay safaaradda Taiwan mudan iyo marti sharaf kale agaasimaha isbitaalka guud ee Hargeysa iyo isduwaha caafimaadka gobolka Maroodijeec ayaa waxay ka warrameen mashruucan iyo sida uu qayb muhiim ah uga qaadan doono horumarinta adeegga caafimaad gaar ahaan xaaladaha degdega ah sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen mashruucan safiirka dalka Taiwan Master Alan Lu sidoo kale halka ka hadlay waxa uu ka sheekay sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka isagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada dhanka caafimaadka ee ay kala shaqeeyaan wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye oo si rasmi ah u saxeexay mashruucan ayaa dhankiisa ka warramay wasaaradahan iyo waxa uu mashruucani markaasi ka bedeli doono habsami u socodka hawlaha caafimaadka gaar ahaan xaaladaha degdega ah isagoo uga mahadnaqay safaaradda Taiwan sida dhow ay ula shaqeyso wasaaradda horumarinta caafimaadka sidoo kale waxaa la soo gabagabeeyay mashruuca ku saabsan horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka kaasi oo socday muddo sanado ah ugu dambeyn heshiiska mashruuca ku saabsan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee bulshada waxaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland u saxay agaasimaha guud ee wasaaraddaas Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye halka uu dalka Taiwan uu qalinka ugu duubay safiirka Taiwan oo u fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland Master Alan Lu مسؤولين كترسان حكومة جمهورية الصوماليلاند ayaa wafdigii sare ee ka socday xisbiga ANC ee South Africa ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland مسؤولينta wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa waxa ay la wadaageen warbixino la xiriira kheyraadka Soomaaliland ku duuban sida tamarta macdanta shidaalka iyo fursadaha maalgashi ee markaasi yaala ama ka bannaan Soomaaliland waqtiga sare ee ka socda xisbiga ANC ee South Africa ayaa dhinacooda soo dhaweeyay warbixinaha iyo kheyraadka Soomaaliland ku jira waxa kale oo xuseen in Soomaaliland tahay dal ay ka bannaan yihiin fursado maalgashi waxay sheegeen in safarkoodan uu noqon doono mid kor u sii qaada xiriirka iyo iskaashiga dalalka Soomaaliland iyo South Africa مسؤولينtaasi ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigaasi ka socday ANC ee South Africa ku soo dhaweeyay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland iyo wasiirka hoggaanka wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka korontada agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta safiirka South Africa oo fadhiya Soomaaliland iyo agaasimaha komishanka tamarta iyo mas'uuliyiin kale wafdiga ka socda xisbiga ANC ee South Africa oo muddooyinkii u dambeeyay Soomaaliland socdaal ku joogay ayaa waxay hore booqasho ugu tageen xarunta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo maalintii shalay ay soo booqdeen wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qabatay kulan ku saabsan dhiirigelinta wax soo saarka iyo dhoofka macdanta dalka kaasi oo u furmay madaxda wasaaradaha maaliyadda tamarta iyo macdanta qabashada kulankaasi ay wasaaradda horumarinta maaliyaddu sheegtay in ay keentay markii la arkay baahida loo qabo in la xoojiyo ururinta dakhliga cashuuraha macdanta oo ah wax soo saarka labaad ee waddanka dibaddiisa loo dhoofiyo marka laga tago xoolaha nool oo inta badan dhaqaalaha dalkeena uu ku tiirsan yahay wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaa kulankaasi uga qayb galay wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxaha macdanta maamulka iyo lacagta qorsheynta iyo shuruucda ee wasaaradda tamarta iyo macdanta xagga kalena wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa kulankaasi uga qayb galay wasiir ku-xigeenka agaasimaha shuruucda iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxaha dakhliga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda
kulankaas ay ujeedadiisu ahayd sidii la isula meel dhigi lahaa midaynta cashuuraha macdanta, dhammaystirka buugga hagaha cashuuraha macdanta iyo xoojinta wada shaqaynta labadaasi wasaaradood oo ah wasaaradaha qaranka shaqo muhiim ah u haya. halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somalilan. Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay qorsheynayso inay biyaha badda u adeegsato godadka dhulka hoostiisa ku yaala ee deegaanka Gaza, kuwaasi oo la sheegay inay ka howlgalaan kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya jidda Gaza ee markaasi u dhexeeya Israa'iil. warkan oo laga soo xigtay wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa intaasi waxa uu ku daray in ay 1300 oo god oo ku yaalaan dhul ay qiyaasiisu gaadhayso 500 kiiloomitir oo ka mid ah deegaanka Gaza. godadkan ayaa waxaa la sheegay inay ka howlgalaan khubarada dhinaca dagaalka ee ururka Xamaas. waxay soo bandhigeen ciidamada Israa'iil xalay godada ka samaysan sabad oo markaasi uu joogoodu gaadhayo 2 mitir iyo badha, kuwaas oo la sheegay in la xaqiijiyay in godadkaasi lagu hayo dadka Israa'iiliyiinta iyo kuwa shisheeyaha ah ee lagu hayo Gaza. haweenka ciidamada Israa'iil ayaa waxa uu sheegay xalay in ay waayo-aragnimo u leeyihiin ciidamada Israa'iil in ay biyaha badda u adeegsadaan godadka ku yaala Gaza ee ay ka howlgalaan kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta ee markaasi dagaalka kula jira ciidanka Israa'iil. isagana Falastiiniyiinta ayaa weli halkii ka sii wada weerarada gantaalaha ay la beegsanayaan gudaha Israa'iil. taasina ay lama filaan ku noqotay Israa'iil oo ugu howjirta in ay meesha ka saarto weerarada gantaalaha ay Falastiiniyiintu ku weerarayaan deegaanada kala duwan ee gudaha Israa'iil. shir caalami ah oo ku saabsan qaxoontiga Falastiiniyiinta ayaa waxa uu ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, kaasi oo ay ka soo qayb galeen wufuud kala duwan oo ka socota wadamada caalamka. waxaana loogu qaadamayaa Falastiiniyiinta ku barakacay dagaalka ka socda Gaza. ogayaha gudaha qaramada midoobay ee furitaanka shirka hadal uu ka jeediyay waxa uu ka warbixiyay xaaladaha degdega ah ee markaasi dhinaca nolosha ee ka jira deegaamada kala duwan ee ku yaala jidda Gaza, taasi oo xogayaha guud sheegay inay keenayso macaluul iyo gaajo soo wajahda malaayiin Falastiiniyiin oo qaxoonti ah. xogay waxa uu shirka ka dalbaday in la helo lacag dhan 400 oo milyan oo dollar oo markaasi ay qaramada midoobay kaga howlgasho qaxoontiga Falastiiniyiinta ah ee markaasi ku barakacay dagaalka ka socda Gaza, kaasi oo la sheegay in ay ku barakaceen dad ay tiradoodu gaadhayso 12 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo la sheegay in ay haysato cunto la'aan iyo caafimaad darro. warkii oo kala socday raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somalilan. khayrta hawada nagala socotay waa naga intaasi gorsheegta Afrikada barina waxay soo gaadhay 8 iyo barkii waana xilliga aynu hawada isku macasalaamayno. dhammaanba hawadeenadii qaybaha kala duwan idinku sugnaa ee baahinta subaxnimo waxaan idinku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkani waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somalilan.